magaalada caasimada ah ee Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa waxaa ku sugan barakacayaal ka badan 5,000 oo qoys kuwa ugu soo barakacay deegaanada iyo degmooyinka ay hore u deganaayeen abaaro iyo colaado ka dhashay deegaanadii ay deganaayeen. magacaygu waa Qamar Maxamed Axmed waxaan ka soo barakacnay magaalada Marko gobolka Marko waxaan ugu soo barakacnay dagaal dartiisa waxaan jecelnahay inay dadweynaha iyo dadka shacabka meeshan ku nool iyo muxuu ahay dawladda waa iska dhibteysanahay marka dagaalan ugu soo qaxnay aniga ciyaalkeyga oo 3 cunug ah waa kana meehana iska imaanay dadkana waxay iska dhex jirnaa barakacayaasha oo la daaladhacay xaalado adag oo dhanka nolosha ka soo wajahay iyagoona ku sheegaya markii aad la sheekaysato in aysan jirin taageero ay ka heleen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha taageera barakacayaasha caalamka. Soomaali u sugiilinaysa oo waxa isku tara waxa lagu tara waa dhibqabna soo qaxna waa soo qaadan waxan wax ku dhugno ma soo qaadan waa soo tan hadda waa sidee marka xaaladdiina xaaladayna waa xun tahay waa fiican xaaladayna waa xun tahay marka hadda hay'adaha samafalka dawladda maamulka gobolka maxaad ka dalbanayseen waxaan ka dalbanaynaa raashin rabnaa u baahanahay biyo u baahanahay baara u baahanahay waa dhib qabnaa Soomaali hadda u soo hiilinaysa nolosheed laba sano barakacaan waxa noo qabtana maar baan yani hadda yani wax noogala daboolo yani hadda yani hadoo keentana maar maxaa ka dalbanaa marka maamulka dawladda ka dalbana guriga ma haysan bac ma haysan baa waa jirtaa alxamdulillaah rabbil aalamiin daawo ma leh intaas oo dhan waa isku haysan intaas ka dalbana waxaa ka soo barakacnay meel la yiraahdo Khaliif oo colaad iyo dhibaata iyo qaaj aan ka soo barakacnay hal kul afar ama aan bariyo hayna gobol ku seexana ma wadan waxaan wax ku karsana ma wadan meehana iska bariyayna masluna una maciinay wax colaad iyo adiga dandar duul yeeyayna dhan waa ka soo roornay xabado dada is dagaalay unu kuma naqaan lama qabiil inay yihiin umula lama meelay ka kala socota
afar caba inta barin mukuli afar caba hadda waa sidee xaaladooda xaaladaan walaahi noloshaba qalqiil ilmaal wata abrooy waayeel oo aan iga daran aawadana oo soco waayeen oo aqalaha ku jira alxamdulillah ilaahay mahadiis gogolan ku sheexano waxaan wax ku karsano waxaan wax ku cunana ma qabno waxaan ku dhaqano iyo waxaan ku seexano dharaaguntana ma wadano saas ma jirto magaceey Faadimo Ismaan Muumin way waxaa ku soo kacay marka adooy xaafid abasiiw way marka ma degan abasiiw aan deganahay meeshaan ku soo kacay diyaarada dugeenta aan ku soo roori ilaahan nool bacdaan kaligeed gaar ilmey hata waa kala dhuunay lugaan ku soo baxan intii shalimbood hadan gaariyaa soo tuugi ni ilaahay ka absanaya meesha iga soo dhawaay ilaa afgooy hadana lugaan anta ka imaaday taasaa jirta iyaarkay badda qoosaan anahay unuka ilmey qoosaan inta kal jidka ku kulungni oo luqlay lagu soo lagu adaynay waa badanahay hiblow ma dhahay taan alxamdulillah muslimiin askil tahajir had oo sheeysan oo wata wax isiilan jooga aleena kaalmee dadkii hortaan ay deganaan dadkana taas uma kala kaseeno waxna siino kaalmeen joogna ilaaha nool horta baahiyana hayso horta ko baahda baniib si daran ilmii unuka iska hor imaasanahay meeshii wal gurina ma haysano meel idla meeshan hadda hal iyo 300 aan barani gabartaana nasiis magaceed ma kasaaye aan soo dhaweeysi maanta mishaaraan no kariye hada wixii kale ilaaha og waa saasa haldayn ee hoola joogo doora joogto waxna ma ka sheegno guriga gadaala oo soo takni magacaygu waa Qamar Maxamed Axmed waxaan ka soo barakacnay magaalada Marko gobolka Marko waxaan uga soo barakacnay dagaal dartiisa waxaan jecelnahay inay dadweynaha iyo dadka shacabka meeshan ku nool iyo muxuu ahay dawladda maxamed xasan cali qeere maxamed farmaajo madaxweynaheena waxaan jecelnahay inay dadkan u soo gurmadaan masaakiintan ciyaalka haysto ee meeshan ku soo qaxay waa aad iyo aad ay u dhibaataysan yihiin gabadhan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxayna siisay dhul aan seexano laakiin nooma awoodo miskiinta iyada oo macnaha gargaar oo ibn aadannimo noo sameeyay waxaan jecelnahay inay dawladda garabna siiyaan iyo wixii kale oo ilaahay gacantiisa wax ku soo riday inuu asagana ilmahan oo masaakiinta meeshan ku gaajaysan caruurta way dhibaataysan yihiin dib iyo haysato dib ayaana wadankeena ugu soo tagnay marka waxaan jecelnahay in laga soo gaaro oo waxna loo qabto 3 habeen iyo 3 maalin halkaan baan jiifnaa cidna og ma lahan marka haddaad dawladda tihiin waxaan idinka codsanaynaa in aad naga soo gaartaan war ilaahay ka cabsado muslimiintaan u gargaara ilaahay ayaa idin gargaara idinkana waa iska dhibtaysanahay marka dagaalan uu soo qaxnay aniga ciyaalkeyga oo 3 cunug ah waa kana meehana iska imaanay dadkana iska dhex jirnaa caruurta kulli anigoo dhan waa dhibtaysanahay dagaalkaas aan ka soo cararnay xaafadda bulbacada ayaan ka soo qaxnay nolosha dib weyn ayaan ku jiraa hadeertaan waxaan iska aaminsanahay walaalaha ehelka ma ay jiraan aadsado aan iska imaaday anabay kaamkeeda hadda iska joognaa meeha ayaan cunta ka cunnaayo wax ka cunnaa meeha ayaan iska seexanaa walaalahayga oo meelaha jiraan waxayna siiyaan oo iska bari dhib aan ku jirnaa hooy oo saas fiican ma haysano laakiin meel la iska seexdo oo bushbush ah way iska joognaa inay garabeeyaan oo garab ay siiyaan ayaan jeclahay waxaan ahay dad masaakiin oo fara badan oo ka soo barakacay gobolkan Jubbada Shabeellada Hoose oo markacday oo 280 qoys gaarayo muddo 3 bari meeshan ku dhibaataysan hooy ma haystaan waxay cabaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan guryo ma haystaan meel barxada ayaan iskaga hayaa markaan wax u awood mararka qaar dadka u shida mararka qaarna muslimkooda dhex galaan waxaan dawladda federaalka iyo hay'adaha gargaariga kuwa maxalliga waxaan ka codsanahay in dadka masaakiinta ay soo gaaraan ee waxay u qaban karaan u qabtaan iyo dadka ilaahay hantida uu dhiibay aniga oo faayri muslim dhaho waxa ka soo qaxi Marko waa ku soo rafaadni ilmaha ahaata meel ma ku sheegna al'aanka meel ahaata ma ku sheegno waa ka soo rafaadna duq ahaata oo aniga xaw ahaata waa dhawaacsiya lugas ka dhawaacsiya waxa jooga meesha meel gur aniga siisi marka soo waasi rafaasana hadii waxaanu sii karti walaalanaha wana soo booqan waxna siiya aniga noo soo khair ala sii walaashii alhankan u yan haaso ha dhiba qaba ani hadii waxaanu garheesi waxna siiya
si wax looga qabto xaaladaha adag ay ku sugan yihiin qoysaskan barakacayaasha ee ku dhaqan duleedka iyo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa xarunta maamulka gobolka Banaadir dhowr jeer kulan ku yeeshay gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow iyo madax ka socotay hay'adaha taageera barakacayaasha 16 bishan ay ahayd markii xarunta maamulka gobolka Banaadir ay kulan ku yeesheen gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow iyo ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika u qaabilsan UNHCR Danjire Maxamed Cabdi Afey iyo madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ee Soomaaliya. Kulankan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay xaaladda barakacayaasha ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow iyo madaxa UNHCR waxay ka wada hadleen sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha ka badan 5,000 ee qoys ee ku sugan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo duleedkeeda. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa warbixin dheer ka siiyay ergada hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga xaaladda barakacayaasha ku sugan caasimadda Muqdisho isagoona xusay muhiimadda ay iminka leedahay in la xoojiyo taageerada lixaadda leh ee la siinayo dadka barakacayaasha ah. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta uu soo booqdo ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika ee hay'adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay UNHCR Ambassador Maxamed Afey oo runtii aad wada garanaysaan iyo Caroline oo ah madaxa hay'adda UNHCR ee Soomaaliya iyo Axmed Cinte. runtii ugu horeyn waxaan aad ugu hambaliyay Ambassador Maxamed Afey doorkiisa cusub ee ah ergeyga gaarka ee Geeska Afrika ee hay'adda UNHCR oo runtii aan aaminsanahay inuu yahay shakhsi mutaystay muddana ka soo shaqeynayay howlaha rugcada ah arrimaha Soomaaliya qaxootigana in muddo ahba u taagnaa kana shaqeynayay horeyna oo ahaa ergeyga gaarka ah ee IGAD ee dalka Kenya. marka waa garan kartaan khibradda uu leeyahay marka aad baan u soo dhaweynay waxaan ka wada hadalnay sidii hay'adda UNHCR runtii iyo wada shaqeynta maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan dadka barakacayaasha ah iyo dadka qaxootiga la soo celiyo iyo howlaha muhiimka ay ka wadaan oo ay ka mid tahay in iskuulada la dayactiro in dad shaqo abuur loo sameeyo dhammaanna waa uga mahadcelinay doorkoodii howlaha wadaan. waxaan ka wada hadalnay sidii aan u xoojin lahayn xiriirka maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adda isla markaana aan u dardargelin lahayn sidii dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo abuurna loogu sameyn lahaa dalka horumarkiisana ay kaalinta uga qayb qaadan lahayn. wuxuu kaloo ambassadorka uga mahadcelinaynaa noona ballan qaaday sidoo weligiisba ahaa inuu aad ugu sii loo bigarayn doono arrimaha Soomaaliya iyo qaxootiga ayna tahay wax wadnihiisa runtii oo aad u jecel yahay in Soomaaliya ay noqoto wadan runtii sidii barsimaadka ahaan jirtay. Ambassador aad iyo aad kugu mahadcelinaynaa aad iyo aad u mahadsantahay. soo dhawaad. sidoo kale ergeyga gaarka ah ee bariga Afrika u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga Danjire Maxamed Cabdi Afey ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin gacansiinta qaxootiga Soomaaliyeed isla markaana maadaama caasimadda ay ku nool yihiin qaxooti tiro badan lagama maarmaan ay tahay in taageerada la siinayo dadkan qaxootiga ah la sii laba jibaaro. gudoomiye oo waxa weeyaan anagu hadaan hay'adda UNHCR runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ku soo booqano kuna xaqiijino inaan diyaar u nahay runtii inaan wax kala qabano howlaha culus oo ku horyaala. anigu hadda intii la magacaabay oo caasimadda ugu hore Geeska Afrika aan booqdo macna badan ay leedahay inaan caasimadan ka bilaabo maxay la caasimadaha ugu muhiimsan Geeska Afrika waxa weeye caasimadda Muqdisho. dhibaato badan runtii ku dhacday muddo dhowr iyo 20 sano ah ilaa haddana dhibaatadaas weli aynan ka soo kabsanin laakiin shacabka magaalada ku nool mar walba xaqiijiyaan jiritaanka caasimadda iyo noloshooda marka wax badan in laga qabto oo runtii lagu caawiyo ay mudan yihiin. waxaan u sameyn doonaa wixii aan horaanba Soomaaliya guud ahaan aan ku caawin jirnay hadana hay'adda
olole yani ku saabsan howlahan culus oo ku horyaala si wax looga qaban lahaa mise shaqo gelin ha noqoto maxaa la caasimadan caasimada runtii barakaca ugu badan hadda dadka ku soo barakacaya Soomaaliya meeshan ay ugu badan tahay dadka ka soo noqonaya qaxootiyaha مثلا dibadaha Soomaaliya marka hore dagaalihii ka qaxay oo soo noqonayna caasimadii u badan yihiin marka anagu hadda shakhsi ahaan aan waxaan aaminsanahay beesha caalamka guud ahaan runtii hadii la rabo Soomaaliya guud ahaan wax laga qabto waa in caasimadda runtii ay noqoto meeshii ugu horeyso wax laga qabto hadii caasimadda ay hagaagtana Soomaaliya inay hagaagayso yaan anigu runtii aaminsanahay isla markaas marka culayska ugu badan Soomaaliya inuu halkan yaala population ugu badan inuu Soomaaliya uu halkan yahay marka wax walba oo awood aan ku leenahay yaan runtii yaan kala qabanayna aan ka caawinayna shacabka Muqdisho waxa kale runtii kaaga hambalyeynaya inaad tahay gudoomiyaha ugu hore caasimadaha Afrika oo runtii xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu qaxootiyaha barakacayaasha wuxuu ka qaban kara ka qabto isla markaasna amartiqaad aan fidinayno ka qayb gali doonto runtii shirka dhici doona Geneva bisha December oo loogu talagalay marka inay caasimadan oo kala caalamka sawirka laga tuso wixii la qaban lahaa oo u faa'iideyn lahaa mujtamaca degan caasimadda waxaan hadda runtii ka tacsiyeynaynaa dhibaatada halkan ka dhacda sanad aan soo dhaafnay oo hadda dhowr iyo laba maalin ka hor aad runtii aad xasuusateen in dhibka ku dhacay waa dhib ku dhacay caalamka idil waa dhib ku dhacay geeska Afrika marka annaguna hadana hay'adda qaxootiyaha arrimahaas oo kale runtii xanuun gooni ay noo leeyihiin waxaan la shaqeynaa mujtamaca caadiga ah marka dhibkaas wuxuu ku soo dhacay dadka shacabka caasimadda waa ka tacsiyeynayna waana ka xunnahay wixii hadda xafiiskan halkan Muqdisho nooga furan Caroline Van Buren ayaad saa sheegtay halkan anaga namatasha idan waxaan ku boorinaynaa inay kula shaqeyso adiga iyo dawladda hoose marka waan ku hambaleynaynaa waxaan ku rajaynaynaa khayr insha Allah qoysaska barakacayaasha ay ku dhaqan duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa iminka waxa ay garab iyo taageeraba ka sugayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha taageerada qaxootiga iyo bulshada Soomaaliyeed ee Ilaahay wax u dhiibay